qof dhameystiran ma leh qofkana cilad buu leeyahay adiguna cilad baad leedahay qofka bini aadanka ah adigu sidaa rabtid kuuma noqonayo because adigu waay qofkana waa qofkan marka labadan qof ciladahooda alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaalahayga waa idin salaamay meel walbada adduunka joogtaa waa walaashii Najmo MBR halkaad iga daawanaysaan waa MBR qurux dumar kusoo dhawaada channelkeena MBR qurux dumar ha ilaawin inaad igala socotid Snapchat-ka TikTok-ga Instagram-ka insha Allah halkan ayaa idin soo wada dhigaya igana soo falgareeya halkan ha ilaawin inaad subscribe-ka deg aku siisid yaa maasha Allah tabarakallah soo dhawaada caawa barnaamijkeena waxaa waayay maadaama aad igu barateen halkaas iyo maaragtay arimaha qoyska caawa waxaan soo qaatay inaan ka hadlo labada qof guriga mid buu ku dhisan yahay mar walba Soomaalida ku mahmahdaa arintaas iyada maxaa ka jira ma saxba mise waa qalad hadaysa jirto arintaas iyada maxaa ka dhalan karo maxaa ka imaan karo faahfaahiyo badan baa ka bixi doona ila soco iloobi subscribe ina saartid insha okay labada qof guriga midkoodu ku dhisan yahay labada qof guriga mid buu ku dhisan yahay mar walba Soomaalida waan ka maqlaa mahmahdeeda laakiin totally waa qalad waxana maskaxda galeyni waana waxana aqliga qaadanaynin waa waxa maanta guriyo badan ee u burbursan yihiin waa waxa maanta hadee guriyo badan burbureen xataa ilmihii iyo waalidkooda kala fogeeyay waa waxa maanta dadka xataa markay kala tagaan oo calaf ku kala tagaan heer ay isla gaaraan xumaata tii ugu xumayd ee isgaarsiiyaan arinta iyada ayaa sababayso guurku qof inuu u sabro kaligiis inuu hool wado ma dhici karto guurku labada qof waa laba qof oo team ah wax isku darsaday waxay u baahan yihiin wada shaqeyn hadduu dhaho qofkan wax walbo xun aniga qaadanayo aniga ma aragtay gurigan igu socdaa waxa ka dhalanayo meeshaas iyada ah nolosha quruxda badneed oo dhanaa ka baxayso waxay noqonaysaa nolol ma aragtay in la cuno la cabo la seexdo ilmo la iska dhalo oo kaliya noloshii ku soo arursanaysa arinta ayadana xabayaanka intaasba wuu suubiya wana xabayaanku bini aadanku way ka sameeyeen yihiin inay wax cunaan waxna cabaan ilmana dhalaan way ka sameeyeen yihiin laakiin bini aadan baan ilaahay baan karaameeyay arintu intaas weynay ka duwnaataa shalay labada qof markay is soo guursanayeen waa laba qof oo wada sheekeysanayay waa labada qof oo wada qoslayay waa labada qof oo hadal macaan ku wada hadlayay markay ajaanibta kala ahaayeen oo xataa hadalka macaan gabadha loo diidanaa inay ninka ku dhaado diineen markii la dhaho haddana maanta markii guriga la imaaday oo la rabo arintaas inay kasii ballaarnaato oo ma aragtay noloshu ay wax weyn iska bedesho markaas iyada loo bedelo nolosha ka baran qofkan kaligiis like sidii asagoo hal qof kaligiis ay dan hayso meeshan qof kaligiis dan ma hayso labada dhinac qof badan way haysaa okay like hadduu qof bini aadan sidii hal qof uu u dhaqmo ama wiilku u dhaqmo ama gabadha u dhaqmato inuu gurigan dhismadiisa kaliba inay qofkan kaligiis dan ugu jirto uusan qofkan badan ka lahayn waa qalad waxyaabaha ka dhalan kara marka maxay tahay hadduu qof kaligiis dhaho anaa maaragtay gurigan weyn taagan ee maaragtay u noqonayo hal tiir gurigan weyn oo taagan hal tiir ma istaajin karo hadduu aniga tiir u noqonayo maxaa ka dhalan kara way marka for how long ilaa intee buu ahaan karaa qofkan inuu maaragtay haayo gurigan uu saa u haayo buurtan uu saa ula taagnaado for how long bay noqon kartaa ilaa intee qofku bini aadan waay okay hadday noqoto gabadhu inay samarto gabdhaha xilliga marka uu samarkooda ku egyaa waxay tahay hadduu gabadha waxyaabaha gabdhaha Soomaalida badana aan ka arkay oo aan gabdho badan oo la soo shaqeeyana aan ku arkay waxay tahay gabadha say wax kasta xun ay u arursanayso ninka naag buu guursanayaa markaasay furka tuuraysaa shalay ina iyada la dhibaateynay ma arkeenin shalay iyada inay xamuul maaragtay taraag xamuul oo raran oo wax rarka ka dhigo la'aan inay ahayd maysan arkeenin like markuu ninka guursado baa wixii ruuxaan iyo wixii jin adduunka yaalo dhan ku soo degayo waxay noqonaysaa marka gabadhii wixii ay shalay xambaarsaneed oo dhan dhibaatada shalay ay qaadanayso dhan inay hal mar soo mataqdo markay mataqdo meeshiideed waxaa ka dhalanaysa xaasidnimo waxaa ka dhalanaysa uqdada ka dhalanaysa waxaa ka dhalanaysa xataa labada qof haday kala tagaan oo ilaahay calaf ku kala kaxeeyo in ilmihii la isku adeejisto sida hadda Soomaali badan ay subiso ilmihii baa la isku adeejisanaya ilmihii waa ninkii loo diidayaa ninkii gabadhii ilmaha ku xumeynaya ilmihiisa ma soo raadsanaya ilmihiisa ma biiranayo waxaas dhib oo dhan xumaatada intaas leeg
waxaasoo dhan waxa keenaya waxay tahay marka u hore oo la wada nool yahay baa waxaa lagu nool yahay nolol aan ma aragtahay totally aanan wanaagsaneyn oo qaraar badan oo xun okay marka labada qof guriga labadaba wuu ku dhisan yahay hal qof kaligiis kuma dhisnaan karo waa inaad lamaanahaaga tustid bartid dareensiisid inaad tihiin team wada shaqayn haddaad nin tahay ha wada xambaarsanin mas-uuliyadaadii iyo mas-uuliyaddii gabadha ay laheed oo dhane gabadha wax fahansii wax la dareensii una sheeg kana dhaadhici dee adigu laba qof oo guriga wada nool baa tihiin barnaamijkaas video kalaan kaga hadli doonaa qaabka aad uga dhaadhicin kartid lamaanahaaga inaad wada shaqaysaan okay iyo secretyada aan siin doono insha Allah laakiin ha noqonina inuu qof kaligiis wax xambaarsado ama inuu qof kaligiis dhow wax baan wadaya labada qof ciladay leeyihiin qofkan cilad buu leeyahay adiguna cilad baa leedahay labada qof markay is soo guursadaan qof dhameystiran ma leh qofkana cilad buu leeyahay adiguna cilad baa leedahay qofka bili aadanka ah adigu sidaa rabtid kuuma noqonayo because adigu waay qofkana waa qofkan marka labadan qof ciladahooda waa inaad is dhamaystirtiin qofkan waxaad adigu tahay waa inuu ku dhamaystiro uu kugu samro uu kugu qaato adiguna waxaad tahay waa inaad qofkan uu kugu qaato adigana wuxuu yahay waa inaad ku qaadatid is dhamaystirtaan ilaa qof dhamaystiran male qof walbaba cilad buu leeyahay adduunkan joogo laakiin noloshu markay noqoto qof kaligiis guriga hogaamiyo qof kaligiis nolosha ha wado waxaa ka imaanaysa caafimaad daro waxaa ka imaanaysa qofka in samcadiisa iyo sharaftiisa lagu ciyaaro waxaa ka imaanaysa bari hadii la kala tago in waxba la isku reebanin oo la iscaayo la is aflagaadeeyo ilmihii la isku adeejisto sida hubkii intaysan saas dhicin waa in la noqdaa dad isla wada shaqaynayo waa in la fahmaa inay fahmaan lamaanuhu guurkii inuu yahay wada shaqayn haddaad maanta dhib ku qabtid aad lamaanahaaga wada shaqayn idinka dhexaynin kaftan idinka dhexaynin wax communication dhanba dhexdeena uusan yaalin waxaan kaga hadli doonaa next video qaabka aad lamaanahaada u training gareyn lahayd sababtoo ah ajaanibta markaynu guursano waxaynu nahay dad wanaagsan sababtoo ayakaana training gareeyaan that's what I believe ilaan ayagoo waa dad dhaqan kale iyo bayhad kale kusoo koray anakana waxaan nahay dad dhaqan kale iyo bayhad kale kusoo koray markuu wiilka gabar ajaanib guursado wuxuu u noqonayaa wiil wanaagsan gabadha aad training gareynayso gabadha markay nin guursatana waxay u noqonaysaa gabar jajabana wanaagsan ninkaa training gareynaya haddaba maxaan diiday inaan anaka Soomaali is training gareyno next video la socda insha Allah hadii la awood la karaa noqda hay loobin inaad subscribe channel ka saartid soona buuqo barahayga bulshada meelaha kale oo kaga jiro TikTok Snapchat iyo Instagram kaba wixii su'aal ah